waa inay doortaan hoggaan u gaar ah. dowladda bakistan ayaa sheegtay in 3 ka mid a milatarigeeda lagu dilay khamiistii shalay iskahorimaad u dhexeeyey bakistan iyo indiya oo ka dhacay dhulka lagu muransan yahay ee xadka kashmiir. waxaa sare u sii kacaya xiisadda colaadeed ee u dhexaysa labada dal ee isku haysta gobolka himalayanka. afhayeen u hadlay milatariga bakistan oo lagu magacaabo genaraal asif khafuur ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid ah ciidanka indiya lagu dilay israsaasaynta. saraakiisha milatariga indiya ayaa dhinacooda beeniyey hadalka ka soo yeeray bakistan ee ah in askar looga dilay rasaastii ay isdhaafsadeen, laakiin waxay xaqiijiyeen in 3 askari oo ka tirsan milatariga bakistan lagu dilay iskahorimaadkaasi. xiisadda u dhexaysa bakistan iyo indiya ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii dowladda indiya ay ku dhawaaqday inay dib ula noqotay sharcigii xuquuqda gaarka ah siinayay dadka ku nool gobolka kashmiir.